daawade culimadii yuhuudda ayaa uu sabatay ku noqday laf dhungashay diintii ayuu ka dhigay ama uu u qaabeeyey sida uu isagu jecel yahay tusaale ahaan yuhuuddu magaca ilaahay carabkooda ma soo mariyaan weynayn ay weynaynayaan awgeed waxaana ay ugu yeedhaan sayidkaygiyow ama yahwaa iyo yahuwa oo kiiyow la micno ah isagu uma uu joojin jirin oo magaca waa uu ku dhawaaqi jiray tanina waxa ay yaab ku noqotay yuhuuddii wadaadada yuhuudda qaar ka mid ah ayaa ogaa inuu been sheegayo laakiin waxa ay ka cabsanayeen taageerayaashiisa badan tusaale ahaan mid ka mid ah wadaadadoodii waaweynaa ayaa dowladda cusmaaniyiinta u gudbiyey inuu sabatay beenaale yahay kadibna taageerayaashiisii oo cadhaysan ayaa inta ay u yimaadeen garhkii ka xiray aadna way u jirdileen sida oo kale wadaadkii ugu weynaa asmir ayaa isna kasoo horjeestay laakiin shacabkii ayaa casilay oo magaaladii keeriyey dowladdii cusmaaniyiintu arrintan waxba kalema aysan socon waxaana sabab u ahaa laba qodob kan koowaad dowladdu xorriyad ayay yuhuudda u siisay arrimahooda diinta dhaqdhaqaaqaasina wax shaki ah kuma abuurin iyo qodobka labaad oo ah in ay dowladdu mashquul ku ahayd dagaal ka socday jasiiradda Crete xilligaasna boqorka cusmaaniyiintu waxa uu ahaa maxamedkii afraad sadrul acdamka dowladda ama ra-iisul wasaaruhuna waxa uu ahaa faadil axmed baasha arrintii waxa ku baraarugay qaadigii asmir waxa uu ra-iisul wasaarihii uga warramay khatarta weyn ee uu sabatay soo wato waxaana ay taasi sababtay in la soo qabto oo inta xagga badda laga soo wareejiyo la keeno caasimadda Istanbul sabatay waxa uu dafiray dhammaan eedihii lagu haysay oo ay ka mid ahaayeen in uu nebinimo sheegtay hase yeeshee cadaymihii la helay ayaa buriyey doodiisii beenta ahayd waxaana lagu tuuray jeelka maadaama oo booqashada loo ogolaa waxa ku soo jabay taageerayaashiisii oo saxmad ka dhigay jeelkii kadibna waa laga wareejiyey oo mid kale oo magaalo kale ku yaalla ayaa lagu xidhay waxa sidoo oo kale Poland ka soo baxay wadaad naaxiim loo yaqaanay isagiina waxa uu sheegtay in uu yahay masiixi la sugayay oo inta uu sabatay jeelkii ugu yimi ayuu muddo 3 shaah la doodayay daawada waxa jira shuruudo ku xidhan masiixa imanaya waxa ka mid ah in uu uga soo horeyn doono oo uu horaantii soo bixi doono masiix yar kaas oo ka soo jeeda dirkii nebi yuusuf oo inta uu dagaal soo qaado ku dhimanayo ama lagu dilayo qudus agteeda geeridaasa kadibna uu iman doono masiixi weynaa oo isagu ka soo jeeday nebi daawud naxiimkan waxa uu rabay markaa inuu ku gorgortamo ama uu ku doodo inuu yahay masiixi yaraa ee qudus ku agdhimanayay laakiin sabatay waa uu ka diiday arrinta oo mid yuhuudi ahaa oo beri la dilay ayuu ugu sheegay inuu yahay masiix yarihii ka soo horreeyay halkaas buu naaxiim ka booday oo uu ka cadhooday saa qorshihiisii hore uu ka walaacay waxaana uu sheegtay inuu masiixi weynaa yahay laakiin dooda kadib isaga oo ka cabsanaya taageerayaasha sabatay ayuu u sheegay inuu rumeeyay sabatay kadibna boqorkii cusmaaniyiinta ayuu sii maray oo sabatay ku diray waxaana uu intaa kadib ku xiiqay sheegashadiisii aanay cidina ka hoos qaadayn ay harin taageerayaashii sabatay ee way ka daba yimaadeen waxaana ay soo buux dhaafiyeen magaaladii cusbeyd ee lagu xidhay jeer ay noqotay wada yuhuud sida oo kalena sixir barar ayaa ka dhacay oo maciishadii ayaa qaali noqotay tanina waxa ay sababtay dadkii magaaladaasi in ay dowladdii u cawdeen waxaana ay dowladdii sabatay xabsi guri ahaan ugu xidhay qasri ay cusmaaniyiintu lahaayeen tallaabadanina waxa ay mucjiso kale la noqotay taageerayaashiisii oo waxa ay u arkeen masiixii jeelka maadaama oo laga saaray lana dejiyey qasri weyn in uu dhowaan uun mucjisooyin la soo bixi doono maalin ayaa sabatay la keenay golo uu joogo boqorkii cusmaaniyiinta iyo qaar ka mid ahaa mas-uuliyiintii dowladda oo uu ku jiro muftigii guud kaasoo la odhan jiray yaxya afandi muftigii iyada oo laga turjumayo ayaa uu sabatay weydiiyey oo ku yidhi waadigii sheeganaya inaad tahay masiix ee iminka waxaanu kugu soo ganaynaa ama aanu kugu soo tuuraynaa warmo markaasna tus mucjisooyinkaaga oo fallaadhaha aanu kugu soo ganayno jidhkaaga kadu ama jidhkaaga yaanay waxba yeelin sabatay waxa uu arkay arrintu inay meel qadhaan marayso xaaladiina waxa ay u istaagtay geeri iyo nolol wuuna ogyahay in aanu mucjiso samayn karin sidaas awgeed ayuu itaal mooday baryo iyo inuu ku doodo been in laga faafiyey oo isagu aanu ahayn masiix iyo nebi toone ee uu yahay wadaad yar oo sabool ah kaasoo sadaqooyinka yuhuudda ka ururiya cabaar markii uu calaacalayay ayuu boqorkii cusmaaniyiintu u sheegay in ay laba doorasho oo keliya hor yaallaan geeri iyo inuu islaamo sabatayna sida ay tolki u yihiin kuwo fulay ah oo ka cabsada u dhimashada mabaadi'da ay rumaysan yihiin oo kale ayuu ahaa waxaana uu bartii ka caddeeyey inuu islaamay durtabaynta suuli la tusay oo uu soo qubaysay loona geliyay dharkii muslimiinta ayaa loo laqimay shahaadadii kadibna waxa uu la baxay maxamed casiis afandi sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeyay ee xarakadan ka mid noqda ahaana aasaasay kooxdaas
cabdilcasiis afandi oo hore sabatay loo odhan jiray waxaa xil muhiim ah looga magacaabay qasrigii waxaana loo qabtay macallin bara carabiga iyo diinta islaamka durtabana waxaa baahday oo meel kasta ka dhacday warkiisii islaamidii iyo xilka loo magacaabay ayaa dunidii oo dhan mushaaxay yuhuuddu waxa ay filanayeen mar hadduu suldaankii u tegay inuu samayn doono mucjisooyin waaweyn laakiin weji kabax ayay ku noqotay kolkay maqleen inuu islaamay dadkii kalena waabay ku qosleen oo ku jeesjeeseen yuhuuddii tani waxa ay jahwareer ku riday taageerayaashiisii oo iyagu intay wax kala caddaanayaan guryahoodii iskaga nagaaday waxa kale oo aada ugu farxay wadaadadii yuhuudda ahaa ee uu khilaafku ka dhexeeyey sida oo kalena qaar badan oo ka mid ahaa taageerayaashiisii ayaa ka gaaloobay si hoose ayuu sabatay fariin ugu diray taageerayaashiisii waxaana ka mid ahaa waxyaabihii uu warqadda ku qoray anigu waxaan ahay walaalkii maxamed waxa uu ilaahay iga dhigay muslim sidaas ayaa la i amray oo aan yeelay waxaana ay kitaabada muqadaska ah ee yuhuuddu sheegayaan inuu masiixu raaci doono diintii muslimiinta waxaana uu ogeysiiyey inuu sidan u yeelayo gudashada risaaladiisa si uu xaaladan taagan uga dabaasho saaxiibadiina dacaayada ayay faafiyeen waxa ay markiiba baahiyeen in sabatay samada loo qaaday ilaahayna uu la kulmaayo booskiisiina lagu bedelay malag iska dhigayo muslim oo dharkoodii oo kala xidhan waxa kale oo ay dadkii ka dhaadhiciyeen tallaabadan uu qaaday sabatay in ay tahay mid caddaynaysa inuu yahay masiixi runta ahaa maxaa yeelay muuseba 30 sano ayuu ku noolaa qasrigii cadowgiisii weynaa ee fircoon aakhirkiina waa kii dabar gooyey isaguna sidaas oo kale ayuu yeelayaa ayay dadkii ka dhaadhiciyeen maxamedinta uu muftigii u tegay ayuu ka codsaday in loo fasaxo yuhuudda inuu diinta islaamka gaadhsiiyo waana loo ogolaaday waxaana ay tani noqotay tallaabadii koowaad ee uu ku dhagax dhigay kooxdiisii lacnadnayd isla markiiba waxa uu ka dhaadhiciyay caqiidadiisii cusbeed taas oo ahayd in islaamnimo la muujiso hoosana yuhuud laga ahaado sidii ayay yeeleen taageerayaashiisii oo inta ay meel kasta iskaga yimaadeen ayay caddeeyeen muslimiin in ay yihiin hoostase waxa ay ka wateen diintoodii hore sidaas ayay turkidii ugu bixiyeen downama oo la micnaa ah kuwii bedelay diintooda amaba kuwii soo laabtay yuhuuddu downamada waxa ay u yaqaanaan miiniim oo ay uga jeedaan dariiqo iyaguna mi'aaminiin ayay isku yaqaanaan oo la micnaa ah kuwii rumeeyey sabatay maxamed xorriyad ayuu u helay inuu hadba meesha uu doono u safro yuhuudduna magaalo kasta meel gaar ah iyo xaafado goonni u ah ayay ka deganaayeen dadkana ma aysan soo dhexgeli jirin waxaana uu si wanaagsan maxamed isugu dubiraday kooxdiisii cusbeed waxa uu u dhigay nidaam iyo manhaj ka kooban 18 qodob oo 2 qodob oo ka mid ah ay ahaayeen in ay mamnuuc ka tahay ka guursiga dadka muslimiinta ah waxa kale oo ka mid ahaa qodobadaas ka sidan u dhigan waxa idinku waajib ah in aad si qoto dheer u samaystaan caadooyinka dadka muslimka ah waxaana idinku waajib ah in aad la timaadaan cibaadooyinka iyo acmaasha ay waajib tahay dadka in lagu horsameeyo sida salaada iyo soonka sabatay ciidaha yuhuudda ayuu xusi jiray waxa uu si joogto ah u booqan jiray uguna cibaadaysan jiray goobahooda cibaadada gabadhiisii ugu dambeysay kolkii uu guursadayna waxa uu diiday in shareecada islaamka lagu meheriyo sidaa awgeed tii yuhuudda ayaa lagu nikaaxay sida oo kalena yuhuudda islaamnimada muujisanaysa waxa uu ugu yeedhi jiray magacyadoodii asalka ahaa ee ka soo jeeday yuhuudnimada dhaqdhaqaaqiisii badnaa waxa ay dhalisay in ay dowladdii cusmaaniyiintu ka shakido dabakal lagu sameeyeyna waxa la xaqiijiyey tuhunkii in uu run yahay kadibna waxaa lasoo qabtay isaga oo xidhan dharkii wadaadada yuhuudda gaarka uu ahaa oo dumar la tumanayo khamrina cabaaya sida oo kalena akhriyaya kitaabka tawraadka ah kadib inta lasoo xidhay ayaa lagu xukumay in la dilo waxaase xukunkaas kasoo horjeestay muftigii guud oo ku dooday haddii la dilo in ay taageerayaashiisu aamini doonaan sidii nebi ciise oo kale in samada loo qaaday waxaana laga noqday go-aankii oo waxa loo caydhiyay albaniya sanadkii 1673 halkaas ayuuna ku noolaa ilaa uu ka geeriyoonayay 3 Sebtembar ee 1675 waxa uu sii dardaarmay seedigii inuu kooxda hogaamiyo u noqdo kaas oo magaciisa islaamnimada uu ku jilaa uu ahaa Yacquub ninkani taageerayaashiisii laba ayuu u kala qaybiyay tijaarta sumado gaar ah ayuu u yeelay kuwa danyarta ana astaamo gaar u ah ayuu u sameeyay aadna waa uu isugu dubariday kooxdii oo xataa waxyaabo badan ayuu ka bedelay nidaamkii sabatay sida guurkii oo kale waxaana loo bixiyay kooxdan Yacquubiyiin geeridii sabatay kadibna ma aysan istaagin dacwadiisii laakiin kooxdii ayaa 3 qaybood u kala qaybsantay qayb kastaana wadaado gaar u ah iyo goobo waxbarasho oo khaas u ah ayay lahaayeen meelo gaarana way degi jireen sanadii 1700 ee miilaadiga ayuu khilaaf soo kala dhex galay kaas oo salka ku hayay sida axkaamta diinta loogu dhaqmaayo murankani waxa uu dhaliyay in ay qayb dhani la baxdo magaca qarax qorshiyiin kuwani waxa ay ku doodeen naftii sabatay in ay gashay
wiil yuhuudi ah oo cismaan la odhan jiray magaciisa caadiga ahina uu ahaa bayruukh waxaana uu wiilkani dhashay 9 bilood kadib geeridii Sabataay kadibna markii uu 40 jir gaadhay aad ayay u buunbuuniyeen ilaa ay darajo ilaahnimo gaarsiiyeen kooxdan waxaa xubno ka ahaa yuhuud xilal waaweyn oo saameyn leh ka haysay dawladda Cismaaniyiinta kooxdan waxaa ka sii dhex baxday qaar kale oo qaabaanjiyoon ama qabaanjiler la yiraahdo kuwani waxa ay ku dhaganaayeen ku dhaqanka shariicadii uu Sabataay ka dhintay iyagu ilbax ayay ahaayeen oo ganacsiga beeraha iyo kaalin wal oo nolosha ahba way ka soo durduriyeen dawladda saameyn ayay ku lahaayeen dhammaan nidaamka ay ku dhaqmaana waxa uu ahaa kamaasoniyada waxana ay qayb ilbaaxle ka qaateen inqilaabkii Suldaan Cabdulxamiid iyo waliba hirgelintii xukunkii Ataturk caadooyinka dawladnimada waxa kamid ah in ay xusaan oo oogaan dhammaan ciidahooda oo gaaraya 20 ciidood waxa ciidaha kamid ah ciida wanka ama ciida ilaysbaqtiinta waxana ay ku beegan tahay 22 iyo 22 March ee sanad walba waxa la qalaawan kaas oo habeenkii hilbihiisa la cuno jamaca ugu yar ee ciidan oogi kara waa 2 nin iyo labadoodii xaas dadka ciidan oogayaana intaas way ka badan karaan waxa se shardi ah ragga iyo dumarku in ay isleekaadaan ayna noqdaan kuwa reera leh oo doobka ama iskaabuladu ciidan shaqo kuma leh kadibna waxa ay baqtiyaan ilaysyada oo dumarka isku bedelaan qofka habeenka calool galana in uu barako weyn sito ayay aaminsan yihiin walina caadadaas ilaa imika way wadaan oo si hoose ayay iskaga iidaan halkii wanka digaagan madow ayay ku bedeleen waxaana qoladana ay ogol yihiin ama ay sidaa u yeelayaan in ay dadku wada dambaabaan si uu masiixu u soo dhaqsado iidaha ay xusaan waxa kamid ah maalintu Sabataay dhashay iyo maalintu islaamay sida oo kalena ciida Tamuus la dhaho oo ay xusaan waxa ay ku maamusan gabadhiisii Saara kooxdan waxa ay lahaayeen luqad gaar u ah oo ay ku wada xiriiraan waxna isugu qoraan maktabada gaar u ah oo kitaabadooda u daabacdana way lahaayeen inkastoo qarnigii 19aad ay gabaabsi noqotay luqadii ay ku hadli jireen waxana ay ku bedesheen oo booskeedii buuxiyay afka Turkiga daawada qiyaasi wixii ka dambeeyay 1850kii kooxdan oo awal hore xirxirneed way isfurfurtay cilmigii ayay barteen dadkiina way soo dhaxgaleen waxana ay sababtay in bilowgii qarnigii 20aad ilaa dhamaadka qarnigii 19aad ay si weyn ula jaan qaadeen siyaasadda dalka waxa ay gacanta ku dhigeen warbaahintii Turkiga wasaaradda dhaqaalaha ee dawladda Cismaaniyiinta wasiiro ayay ka noqdeen taas oo dana badan u fududeysay sidoo kalena waxa xarun u ahayd Salonik oo yuhuudda ugu badan ay joogtay nimankani waxa ay xiriir adag la lahaayeen maasoniyada oo isku nidaam ay ku shaqeyn jireen waxana ay u guntadeen sidii ay u inqilaabi lahaayeen Suldaan Cabdulxamiid kii labaad oo waxa horkacaya Karas oo kamid ahaa yuhuudda dawladnimada waxana uu sidoo kale ku jiray waftigii suldaanka u geysay waraaqdii lagu casilayay sidoo kalena xubin firfircoon oo saameyn leh ayuu ka ahaa maasoniyada markii ay inqilaabeen Suldaan Cabdulxamiidna waxa ay geyseen magaalada xarunta u ahayd ee Salonik ka daranka waxa ay dajiyeen oo ay xabsi guri kaga dhigeen qasri ay yuhuuddu leedahay kasi daranta ee waxa mas'uul looga dhigay Muushi oo ahaa yuhuudi dariiqadan ka soo jeeda kooxdan wax badan lagama aqoon Suldaan Cabdulxamiid isagu in badan ayuu isku dayay in uu u dabagalo wadaadadooda ayuu ku amray taariikhdooda in ay u soo qoraan aakhirkiina si fiican ayuu u fahmay nimankan xogtoodana qarnigii 19aad ayay soo shaabaxday sanadii 1917kii waxa la gubay dhammaan kutubtii iyo maraajiicdoodii taalay Salonik oo xaruntooda weyn ahayd halkaasna waxa ka soo gaaray dhaawac weyn taas oo sababtay in ay diin ugu iyo suhdigii si tartiib ah uga tagaan kowdii bishii koobaad 1924kii ayaa nin la yiraahdo Rushdi Qarqaash waxa uu warqad uu ku qoray sirta iyo xaqiiqada dawladnimada u diray Mustafa Ataturk iyo golihii shacabka ee Turkiga dooddeer kadibna waxa albaabada la isugu dhuftay goobihii ay ku suhdin jireen ama ay ku cibaadeysan jireen markaasna waxa ay si aan kala hadlahayn uga banbaxeen maasoniyadii oo awal horeba ay isku nidaam ku shaqeynayeen daawada dood kale ayaa wali taariikhyahanada ka dhex taagan taas oo oranaysa Mustafa Ataturk waxa uu ahaa yuhuudi dawladnimada ka tirsan mise muu ahayn waxa uu ku dhashay Salonik oo dadka ku nool 70% ama in ka badan ay yuhuud ahaayeen waxa uu wax ku bartay dugsiyadoodii waxa macallin u ahaa filosof weyn oo dawladnimada ka tirsan intuu kursiga u halgamayay hiil iyo hooba way la garab taagnaayeen dawladnimadu markii uu dalka qabsadayna xilal muhiim ah ayuu u dhiibay la taliyayaalna uu ka dhigtay jaamacadihii ayuu in badan ku wareejiyay manaahiijta waxbarashadana way la dajiyeen dawladnimadu waxa ay sheegaan in uu iyaga ka dhashay
dadka kasoo horjeeda Mustafana waxa ay ku doodaan inuu ninkani Yahuudi ahaa laakiin dawladda Turkiga ayaa arrintaas ganafka ku dhufatay isku soo duuba kooxdaasi wali waa ay jirtaa doodiina way taagan tahay Yahuudu markii ay arkeen in ay islaamnimo muujisanayaan sidoo kalena ay banayseen waxyaabo uu sabatay u xaleeliyay kuna salowgeen dumarka la isku bedelayo way dafireen oo way diideen inay qoladani Yahuud yihiin iyaga qudhoodana sirtoodii kolkii ay fashilantay xilliyadii dambe waxa ay ku doodayeen in ay iyagu muslim fiican yihiin laakiin awaawiyaashood ay xumaayeen wada barnaamijkeena labada xilqadood ka koobnaa kaliya waa xadan xantayn waad sii baari doontaa xaqiiqada dariiqadan khatarta badan lehna ee muslimnimada muujisanaysa Yahuudnimadana qarshanaysa intaas ayaynu inagu ku joojinaynaa waxa si aan rajaynayaa inaad adigu u sii dhabbal gali doontid oo aad raadin doontid xaqiiqooyinka iyo taariikhaha ama kaagale ee qolada Yahuudda ah